aan u soo laabano dhallinyaradii xoolaha haddaba kuwan inta ay cararayaan oo weliba ay faraxsan yihiin neefkaana waxay u wataan inay gataan ee suuqa geystaan balse ninka xoola raaca ahaa ayaa arkayo inay nimankan soo xadeen neefkiisina ay wataan oo kusoo daba cararayo kuma uu herayo nimankaana ma ogo in lasoo bursanayo oo waa iska socdaan markiiba uu ku dhigaya wuxuuna ku leeyahay istaaga neefkan aniga iskale xagee ka keenteen idinka tuugo ayaa tiin ninkan waa isku naxaya balse caqli ayuu keenaya buug ayuu lasoo baxay wuxuuna ku leeyahay neefkan aniga soo gadana suuqa ayaan kasoo gadanay waana kana qiimihii aan kasoo bixinay iyo waqtiga aan soo gadanay halkaan ay ku qoran yihiin anaguna ma nihin dad tuugo ah ee wax xubso waxba muubtide oo ninkan indhaha ay ka gelayaan waxayna ka dhaadhicinayaan neefka inay suuqa kasoo gateen weliba waa isku dhaafayaan balse ninkan go-aan ayuu gaaraya wuxuu ku leeyahay neefka waad soo gadateen soomaan oo lacag ayaa kasoo bixiseen okay lacagtiisa aniga idii celinayo neefkan aniga ugu wareejinaysa ay ku leeyahay okay ku leeyahay waa diyaar lacagtan ugu wareeji keliya neefkan adiga qaado waxba kama qabno okay ku leeyahay neefka uu soo wareejiye lacagta kasoo bixiseen oo idii celinaya lacagta soo bixinaya oo u tiraya si uu lacagtada nimankan ugu celiyo horey sidan ma kugu dhacday oo xoolo lagaa soo xaday haddana mar kale lacag ma lagaa sii siistay fadlan haddii aad nagu xusubtaa legsar muuqaalka oo nagu soo biir ninkan wuxuu tirtirayaa buuggii ay samaysteen ayagu waxayna ku qorqorteen waxayna ku leeyihin lacagtina waa ka haysanaa waana wada kartaa neefkaaga ninkan sidaas ayuu lacagta ku bixinaya neefkiisana kusoo wadanaya muuqaalkeenana halkaas ay ku ogyahay fadlan haddii aad nagu xusubtaa nagu soo biir oo legsar muuqaalka mahadsanid sharaf iyo karaamo